maxay tahay sababta Farxiyo Kabayare inta ay soo bandhigtay nin ay guursan rabto isla markii degdeg ay uga noqotay kadibna ay heystan ku soo dhufatay dantaada hadaad ka raacdo hadow kala u baydho in baad doqon kugu tilmaamo dareema lahayn shaqeeya hadiidin mahmahduuga ahayd markay ku xantaan dadyogu xasuustoodaad ka daymin waxa tahay darajo ruux la beetiri intay kuleetiga saa hurguftay Kabayare heystan xaalad gaar ay qusaysaa نحن في الخير والعافية واتزوجت واحد رجال أحمر ننعس نوان كورس ذي بيتر دراما شو adiga kuma dan laha ee dadka ha iska soocin kulanti waana wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada bandhiga daraama show mar walba aad ku ogaataan xoogaha xasaasiga oo kaga ogaataan dadka caanka sida fanaanada Farxiyo Kabayare koorsi horeysa waxaad maqasheen in ay guursanayso soona bandhigtay ninkii ay alkumatay laakiin soo cudurkii ka soo dhaxgalay oo halkaasi arooskaasi ku baaqday Siciid Dheere oo ahaa nin ay Farxiyo Kabayare si weyn isugu dhawaayeen saaxiib dhowna ay ahaayeen ayaa waxa uu yaqaanay tan iyo arooskeedii horeeto ninka hore ay u dhashay wiilka Dalmar markii ay kala tageen ayuu waxa uu ku baaqay in ay iskursadaan kadib waxa ay tiri haddaan guur iga burburay ma doonayo inaan guur kale si toos ah u gada galo intaasi wixii ka dambeeyay waa la kala baado waa la isla jooga laakiin dad is yaqaan oo isku fiican ay ahaayeen wixii intaas ka dambeeyay 2019 dhamaadkeedii bilowgii 2020 waatii Farxiyo Kabayare ku dhawaaqday in ay heshay jacayl cusub arooskeedana uu goordhow dhici doono bartaasi heesaha iyo waxaan ku leedahay jacaylka sawirada wax walba ay soo bandhigtay intaas wixii ka dambeeyay safmarkii ayaa imaaday safmarkii waxa uu baajiyay in uu meherkii arooski dhaco waati la yiri Soomaalida guryahooda ha ku wada jiraan Soomaalida kaliya ma ahan adduunka oo dhan meel walba oo la joogo qof walba waxa la yiri gurigeeda ha ku jirto ilaa ku dhow oo xog ogaal ah ayaa daawadayaal noo xaqiijiyay intaas wixii ka dambeeyay arooskaasi markii uu baaqday Farxiyo Kabayare waxa ay tiri dadka tirada badan iyo mulqdan iyo naga jooji oo kaliya noqo waad qaanad ku hadlaysa marne intaas waa iga yara kaftare naga jooji tiriyo meelahan lagu qaylay iyo meesha Soomaalidu waa taqaanin moogta hal meel isugu imaadaan kalamana tagtagaan waa dad markii ay si salaamayaan xabadkii isma xabab beena iyo maxabba run miday noqoto beenta u badayo hal wali hadhoodin lagu qanjiirina marka waxay tiri dadkeena waa dad isma xabba jecel meelaha lagu qaylay tagin meelaha la isku imaada tagin niyo joog على كل حال habeenada kamid ayaa la yiri meel lagu qayilayay oo ay dhalinyaro fara badan joogeen oo asagana kamid ahay baa waxa la yiri waa heedaniyo adigoo aroosin maxay tahay naagta tan ku amraysa warniyo miyaa nin laan dheera ahayn meesha maxay tahay wax la soo sheegayo waa maxay markaas asagii waa taqaanaayo dhowr dhalinyaro ay saaxiibayihiin dhinacyada ka soo gashay sida warku nagu soo gaaray waxa lagu yiri naagtan hadayba ku amraysa aftaag buu keenay afkiibu buuray markaas waxay tiri Farxiyo Kabayare maalin subaxii dambe ayay aragtay ninkii wajiga u bedelan yahay waana ninkay isguursan rabaan oo is arooseen intaas wixii ka dambeeyay Farxiyo Kabayare 24 saac gudahood ayay go'aan degdeg ku qaadatay oo ah ninka hadda adinka oon isku aqal galin afka booraya miyuu ka soo reynaya waa maya layswana dirqi layswana dagaale wala kala dambeeya dan walo helay isqabo دنيمدي وفريد ومريا الرقيب ليس مانا درقي ليس مانا دقالي ولا كلا دنبيا دوا لو هليس قبو دنيمدي وفريد نكروم حيابا صعب شرتي Farxiyo Kabayare oo halkaas horta guur burbura wax lagu qosla maahan oo daawada laakiin barnaamijka sidoo idin kugu macaanaan lahay ayaan xoogaa idin soo koreynaya soo maaha ha iska tago I'm free women free life bay taagantahay Kabayare I'm free woman waxba ka dhacay intaas wixii ka dambeeyay markay aragtay Farxiyo Kabayare ay muddo saacada ahna ay go'aan ku gaadhay in ay iska joojiso guurkaas gabi ahaantiisa ay u yeedhay ninka Siciid ahay waxayna ku tiri anigu guurkaasi gabi ahaantiisba waa isaga baxay ma garatay oo mar dambe dib waxaynu isugu soo noqonaa aba qalad ah masaasa go'aansatay sidii baa go'aan lagu gaaray waa lagu kala tagay sheekada iyo nuxnuxdii ma aysan deen dadkii
iyo meelihii marfashada inuu tago iyo inuu maaragtay asxaabtii wiilka in ay xaxantaan farxiye kabayare jinni camal ay ugu kacday markaas wixii ka dambeeyey. kadibna waxa ay abwaan ka dalbatay heesta darajo oo iminka soo baxday loo dhalan rogay in u qaada la moodo waayaha cusub gooni bay ula hadashay. waxay tiri anigu uma jawaaba dadkaasoo kale taanlayga ayaa ku filan, laakiin heestaani xaalad gaar ah ayay qusaysaa sida iyadu baa nagu tiri. ما أنت والله شنت والله. والله صبرا. هاي. واه. والله صبرا. صوّد جواب نرد. جواب. هستن حالات قارة قصيصة. هاي. ما هدرتين وساري كرتين. والله بلا أنا جواب ما نقع. مي. هي صدق. كل واحد شريك هذا بلوزة. وهاجاك فرحية كبيرة waxay tiri xaalad qaas ah ayay heestaani qusaysaa oo markaasi ay heestan qaadaysay xamaasad kala ayaa kacsaneed oo kooxda waayaha cusub iyo dawladda ka dhaxaysay. marka farxiye kabayare arrinkaas inay dhaliisho waa gooni oo barnaamijkan aad hadda u jeedaan oo dad fara badan ay qaateen. markii ugu horeysay waxa baahiyay Soomaalida shidan ayaa laga wada qaatay. badanaana fikradda aynu keenna dadku way qaataan, laakiin annagu sida aan ugama hadlaan waxyaabo kale ku sii daraan. annagu jawaabta ayaan ka hadalnay farxiye kabayare oo waayaha cusub u jawaabtay. kulleeyta heestan ayadana ma aysan kala cadeyn oo bayaan cad uma soo saarin maadaama dadka u dhaw ay leeyihiin ma jawaaba. laakiin heestaani markaa gudaha u fiirisid waxaa ku qoran true story oo xaalad sax ah in laga qaaday. heestana farxiye kabayare ayaa abwaanka ka dalbatay ayadana ayay qosaysaa. waxayna ugu dan leedahay ninkii ay guurkooda alkunteen oo ay burburan guurkoodii asaga ayayna u qaaday oo heesta waa midaas wax dawlad loo soo qaaday wax waayaha cusub loo soo qaaday ma ahan. fikirkeedu way ka dhiibatay kooxda waayaha cusub markaasi, laakiin heestaani ma qusaysaa waayaha cusub oo waxay qusaysaa nolosha farxiye kabayare. heesta darajo haddii aad daawatay hadda dib ka daawan doontidba Soomaalida shidana barnaamijkay soo deysa waa barnaamij sax dib looga laabamayo oo waa barnaamij la soo shiilay oo la soo karkariyay oo la soo turxan bixiyay wax qaladana aynu ku jirin ila xog ogaalana ay noo soo gudbiyeen daawadayaal. barnaamijkuna waxyaabaha uu ku kasbaday dadweynaha ayaaba intaas ah. fanaaniintu waa asxaabteena, fanaaniinta ma nacbin xaaladahooda ama beenta laga faafinayo kaleeto in aan anagu bulshada u baahina diyaar ayaan u nahay wixii sax ka ah maadaama qalad laga faafin lahaa kulley tawar un waa la baahin lahaa. maxaa lagu diidayaa barnaamijka daraama show oo sax baahiyo inkastoo fanaaniinta qaar ay weerar nagu soo qaadeen fanaaniin caraysan baan arkeen oo jinna camal ugu kacsan walaalayaal isdajiya dee fanaaniinteeni baa tiire maxaa idinka qaldan maxaad uga dhigaysa in buur lasoo dameeyey xog haddii dadka lala wadaago. barnaamijka daraama show intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. barnaamijkiisa kale intaynu ku kulmi doono waa la kala dambeeya dawaa loo helay isqabo dadnimadii waa fariid bay tiri nakroma. Bye. layswana dirqi layswana dagaale wala kala dambeeya dhan waa loo helay isqabo dadnimadii waa fariidu mariyo ragii layswana dirqi layswana dagaale wala kala dambeeya dhan waa loo helay isqabo dadnimadii waa fariid soo degdhaa badda doomba maraysay andule soo degdhaa dhulkay wada daryaamay soo deg oo dhulkay wada dargamay soo deg badda doomba maraysay andule soo degdhaa badda doomba maraysay andule soo degdhaa dhulkay wada dargamay soo deg oo dhulkay wada dargamay soo deg